السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال halkan nagala socotaan waa Manka Media Channel. Aan ku bilaawo magacaygu saddexan waa Maxamed Deeq Cabdi Garaad oo ku magac dheer Aynaashe. Waxaan idin leenahay walaalayaal, waxaan idin soo wadaa warar xiiso leh iyo waxyaalo badan oo idin xiiso geliyaan. Marka waxaan idin leenahay daawadayaal, channelkaas ha lagu yaaco, comment, like, share. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa Manka Media Channel kusoo dhawaada. Maanta waxaan hayaa war yar oo kooban, warkaas oo ku saabsan dalka Kenya iyo cudurka coronavirus ka socda. Sida ogtihiin, dalkan Kenya shakhsiga ugu horeeyay oo laga helo coronavirus waxaa la helay 16 bari ka hor. Kadib tirada way socotay. Maanta shalay markii baaritaan la sameeyay waxaa la helay 7 qof oo coronavirus. 4 waa Kenyan, 2 qof waa Congolese, 1 qof waa Chinese. kullina waxay ku wada noolaayeen Kenya. 7 qof oo la helay kullina gobolka kama soo jeedaan dalkan Kenya ee Nairobi ay ka soo jeedaan, gobolka Nairobi ay ka soo jeedaan. sidoo horaan madaxweynaha u dhahay craft uu ku dhawaaqay ama bandow si Soomaali u qaanto, bandowgaas soo soconaya ilaa ay waqti asaga uu istaajiyo. bandowgu wuxuu bilaabanayay 7 pm ilaa 5 am. sida ogtihiin, askarta Kenya baryahan way kacsanaayeen, habeenahan dadku way qaraacayeen, way xareynayeen. marka sidoo madaxweynaha wuxuu dhahay haddii tirada 50 ay gaarto wadanka dhan lockdown lagu sameeyaa. lockdown waxa waaye inay dadka dhan wax soo baxay malaha, wax ganacsanay malaha, dukaan la furaay malaha, meel la furaayo la awoorto ma jirto. gurigaaga ku jireysa. waxaan shalay dhan la sugayay dadka ganacsatada iyo dadka shaqaysanaya waxay u dhagtaagayeen goormee lockdown la sameyn doona. baaritaan la sameeyay xalay ilaa saaka 400 oo qof ayaa la baaray. waxaa laga helay 8 qof oo coronavirus positive ah. tiradii waxay tagday 50. dadku waxay ka cabsanayaan lockdown in la sameeyo. madaxweynahana horaan wuxuu dhahay lockdown ayaa la sameynayaa tirada 50 haddii gaarto. maantana 50kii way xarootay, 50 ay maraysaa tirada. marka madaxweynaha badanaa wuxuu hadlaa ka bilaawata 6 pm ilaa wax ka dambeeyo hadlaa. hadda dadku waxay sugaan waa madaxweynaha hadalkiisa. madaxweynahana hadalkiisa 12 wixii ka dambeeya ogaan doonaa. maanta warka aan la socodsiinaa waa intaas. marka Soomaaliyay nala socda, channelkana subscribe dhaha, like saara, comment. wixii war soo gudbanaadana nala soo socodsiinayna insha Allah.